waxaan ku bishaareynaayaa waa dhamaatay waqtigii qof Soomaaliyeed xuquuqdiisa la duudsado haddii la soo gaarsiiyo farmaajo ee xasan khayr waxaan rajaynayaa in qof walba Soomaaliyeed oo dhageysanaya meel walba uu joogo Suudaan iyo Soomaaliya iyo dalka dunida in la soo gaaray waqtigii Soomaaliya ee run isu sheegay waxaan idin sheegayaa hadafka dawladnimadeena oo ay hadda ku dhisan tahay sida aad maqlayseen maalintii madaxweynaha la doortay ilaa hadda meel walba oo aan ka hadalno inay tahay in la baabiyo qabyaaladda in la baabiyo musuqmaasuqa in la baabiyo niljeclaysiga in la baabiyo dhaqankii ku dhisnaa in qolo gaara ama dad gaara ay ku adeegtaan qarannimada Soomaaliyeed السبب aniga iyo madaxweynahada nagu kalifi karta inaanu imaan shacabkeena waan la hadlo sababtoo ah waxaan idinka qarinna ma hayno waxba idinkama qiyaana aniga madaxweynuhu wax ma musuqmaasuqno laaluush ma samayno dhulkiina ma gadano waxaan habeen iyo maalin u taaganahay inaan idinkeediin adeegno ma dhici karta marka inaan idinka dhuudhuumano waa in meel walbo shacabka Soomaaliyeed ay joogaan aan kula hadli karo waxaan adigu faraxsanahay in ku dhawaad 7,000 arday oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah rag iyo dumar isugu jira ay halkan wax ka bartaan anigoo aaminsan inay yihiin iftiinkii mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo aaminsanahay meeshan inay tahay meel aad u dhib badan in lagu noolaado iskuulka Suudaan macnaheedu waxay tahay ku noolaashaha Suudaan inaad ka soo baxdid kadibna jaamacad Suudaan aad ka soo baxdid macnaheedu waxay tahay inaad soo martay noloshaada meeshii ugu adkayd marka waxa soo laabanaya wiilal iyo gabdho aad u laftabar leh oo dalka Soomaaliyeed wax ku tari doona mustaqbalka haddii Ilaahay dalka waxaa ka socda dib u dhis weyn oo laga bilaabi doono mar dhow haddana bilowday sababtoo haddaa fiirisid dhaqaalaha waddankiina maanta waa soo eegaysaan marka annagu aan bilownay iyo hadda markaad isbarbar dhigtaan in ku dhow 2,000 oo ganacsi cusub ayaa xamar keliya laga diiwaangeliyay 7 milyan oo dollar oo deyn ah ayaan ugu nimid annagu iyadoo lagu leeyahay dowladda Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nidaam xumo awgeed in ku dhow 6 bilyan dibadda looga leeyahay shuruudda ugu horeysa waxa ay tahay inaan waxba lagu yeelan waxaan ugu bishaareynaayaa maalintii madaxweynaheena loo diiday qaranka iyo aniga ilaa hadda inaan hal shilin oo deyn anaga nabad ku waxaan ugu bishaareynaayaa in sicir bararku sidoo hore keeriya in GDP-gu sidoo hore ka badan yahay in awoodda wax gadashada sidoo hore ka badan tahay in faqrinimadu ay hoos u dhacday waxaan ugu bishaareynaayaa in qof walba dowladda u shaqeeyo laga bilaabo maalintii shaqada lagu dhiibay ilaa hadda bil walba 30keeda oo mushaarkiisa qaato waxaan ugu bishaareynaayaa inaanan lacag meel kale ka keenin aniga madaxweynuhu laakiin tii markii hore soo geli jirtay unaan u dhaqaaleynay shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaayaa in hadafkeenu uu yahay in dowladnimada loo soo celiyo shacabka macnaheedu waxa ay tahay in nidaamka qabyaaladda ku dhisan laga gudbo looga gudbo asxaab siyaasadeed la dhamaystiro dastuurka oo 5 cutub ugu horeysa la dhamaystiray la heshiiyo dowlad goboleedyada si loo sameeyo awood qaybsi iyo kheyraad qaybsi taasoo suurtagelisa in 2020 dadka Soomaaliyeed ay codka dhiiban karaan laakiin in ka yar 1% aanay ahayn kuwa dalka ku tartama idinkana oo mar walba laakiin idinku aad go'aan ka gaari kartaan cidda mustaqbalka waddankiina madaxda noqonaysa waxaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay dad Soomaaliyeed oo aaminsan inay leeyihiin dal qani inay leeyihiin fursad ka weyn wadamada dariska aan la nahay iyo dunida inteeda kale laakiin ay dhibaato ku hayso dad Soomaaliyeed
oo aan meel fariisan oo aan dhihin dawladdeena maxay qabatay laakiin fahamsan dawladdu iyaga inay yihiin dad Soomaaliyeed oo fahamsan qabyaaladdu inaanay qarannimo keenin keliya ay keenayso qabya dad Soomaaliyeed oo aaminsan haddii ururo kala duwan aad ku jirtiin iyo firqo kala duwan in maskaxdiina iyo xorriyaddiina qaar aad bayseen waxna aadan dunida ku soo kordhinaynin halkan waxaanu nimid inaan ka qayb galno shirka heshiisiinta koonfurta Suudaan waxaa kaloo fursad u helnay in aan la kulanno qaar ka mida madaxda dalka Suudaan oo anigoo ku hadlaya magaciina iyo magaca ummadda Soomaaliyeed anugu mahad celiyey siday gacmaha noogu fureen noogu soo dhaweeyeen dalka waxaa kaloo u sheegay in dad badan oo Soomaaliyeed oo halkan wax ku bartay maantay dalka ay ka yihiin ama wasiiro ama maamulayaal ama agaasimayaal ama ganacsato waaweyn ama dad wax soo kordhiyey oo waddanka wax weyn ku soo kordhiyey macnaheedu waxay tahay guddoomiye halkan ka hadlay wuxuu yidhi Suudaan iyo annagu waxaan leenahay xiriirka waxbarasho oo aan la leenahay Suudaan maadaama kumanaan Soomaaliyeed ay wax ka barteen kuwa kalena ay ka baran doonaan dib u dhiskana dalka ay qayb ka yihiin waxaan ka wada hadalnay maanta sida aan taas uga faa'iidaysan lahayn sidee waa keen lahayd xiriirka labadaba